Toddobo jacaylka calaamadaha qarxinta ee dareemaya jacayl laakiin aan ahayn. Waa maxay duqaynta jacayl? Waa maxay duqaynta jacayl? Bam qarxinta jacaylku waa farsamada xadgudubka nafsiga ah ee qofku u muujiyo ficilo jacayl oo xad dhaaf ah iyo feejignaan qof kale si uu u saameeyo oo uu u xakameeyo. Waxay u ekaan kartaa mid lidi ku ah, laakiin bamka jacaylka waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo ilaaliyaha dadka goor hore xiriirka oo ka dhigo kuwo aad u nugul xakamaynta iyo wax isdabamarin wakhti kadib. Si joogto ah ayaa loo heli karaa. Inkasta oo tani ay u muuqato calaamad muujinaysa ballanqaad, helitaanka joogtada ah iyo xiisaha xad-dhaafka ah ee noloshaada waxay noqon kartaa sabab walaac leh. Bambaanooyinka jacaylka waxay u muuqdaan inay isticmaalaan jacaylka si ay u helaan kalsoonida dadka. Si aad u kala saartid jacaylka dhabta ah iyo bamka jacaylka, samee xuduud cad lamaanahaaga. Haddii ay sii wadaan inay ka gudbaan xadkan si ay kugu guulaystaan, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa qarxin jacayl. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskaraabsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Waxay ku siinayaan hadiyado xad dhaaf ah. Dadka qaarkiis waxay jacayl ku muujiyaan hadiyad bixinta iyo ficilada adeega taasoo ka dhigaysa maalinta lamaanahooda mid ifaysa. Si kastaba ha ahaatee, marka hadiyadahani noqdaan kuwo weyn oo ku saabsan soo noqnoqda, waxay noqon kartaa iskuday qarxin jacayl. Dabeecadahan waxaa loola jeedaa inay kaa dhigaan jacayl aad u liidata oo aad ku guuldareysatid inaad aqoonsato calaamadaha wax isdabamarinta ee xiriirka. Waxay u yaaceen guulo waaweyn. Mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee bamka jacaylka ayaa ah lamaanahaaga oo kugu degdegaya guulo waaweyn. Tani waxay sidoo kale u ekaan kartaa inaad wada iibsanayso wax iibsi qaali ah adiga oo ku baraya dadka muhiimka ah ee noloshooda iyo ka hadalka quraarta nolosha oo dhan goor hore ee xiriirka. Si aad uga fogaato in jacaylku kugu dhaco, caddayso xawaaraha aad rabto inaad ku horumarto lamaanahaaga. Xooggooda ayaa ku dhibaya. Waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso sababta lamaanahaaga jacaylka iyo dareenka ku muujinaya ay kugu dhibayso. Haddii aad ogaato in lamaanahaagu uu aad uga walaacsan yahay xidhiidhkaaga, la xidhiidh dareenkaaga adoon ka baqin iska hor imaad. Bambaanooyinka jacaylka ayaa ka faa'iidaysan kara isgaarsiin laantaada si ay kugu sii jeediyaan. Waxay dareemayaan inay xaq u leeyihiin dareenkaaga. Bambaanooyinka jacaylka ayaa ka faa'iidaysta falalkooda si ay kugu celiyaan dareenka xad-dhaafka ah iyaga. Helitaanka xad-dhaafka ah ee lamaanahaaga waxay kaa dhigi kartaa inaad ka godo qaybaha kale ee noloshaada sida hiwaayadahaaga, saaxiibtinimadaada iyo xiisahaaga. Tani waxay kuu sahli kartaa inaad wax ka qabato marka uu xiriirku sii socdo. Haddii aad dareento in lamaanahaagu uu ku weydiiyo inaad si joogto ah ula joogto iyaga, si tartiib ah ula xiriir awooddaada. Maya jawaab uma qaadan karaan. Bambaanooyinka jacaylku waxay ku tiirsan yihiin xaqiiqda ah in jacaylkooda aadka u daran uu kugu adkaynayo inaad maya ku tiraahdo. Haddii aad ogaato in lamaanahaagu aanu ixtiraami karin xuduudahaaga oo aad jawaab u qaadan weydo, isweydii in jacayl lagugu soo tuuray. Xidhiidhka caafimaadka qaba ayaa ku lug leh labada lamaane oo ixtiraamaya midba midka kale dareenkiisa iyo aaga raaxada. Waxay ka masayraan dadka kale ee noloshaada. Soo noqnoqoshada caadiga ah ee bamka jacaylka waa isku dayga lagu godoominayo nidaamyada taageerada noloshaada. Tani waa sifo laga helay lamaanayaal badan oo wax isdabamarin ah, maadaama ay kaa hor istaagi karto inaad talo iyo caawimo ku saabsan xidhiidhkaaga ka raadsato asxaabtaada iyo qoyskaaga. Tani waxay dhici kartaa haddii lamaanahaagu had iyo jeer ku adkaysto inuu kula kulmo kaligaa ama uu ku weydiiyo inaadan arkin kuwa aad jeceshahay.